magaalada Baydhabo ee xarunta gobolkaasi Bayna waxaa laga taagay calanka ay yeelanayaan 6 gobol ee isku yiraahdo Koonfur Galbeed Soomaaliya sida warbixintan uu ku soo diray wariyaheena Muxuddin Xusni. halkani waa xarunta ADC ee magaalada Baydhabo oo maalmahan dambe si xawli uga socday shirka maamulka loogu sameeyo 6 gobol ee Koonfur Galbeed Soomaaliya hase yeeshee maanta shirku waa uu ka doonaa kulamadii hore oo ergooyinka ay yeelan jireen boqolaalka dadka iyo waliba ergooyinkii ka qayb galay oo kulanka ka socday xarunta ADC ayaa banaanka u soo baxay xarunta waxaana goobta lagu taagay calanka ay yeelanayso dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo shirkeeda uu ka socdo magaalada Baydhabo ee gobolka Baay. intaasi kadib waxaa lagu laabtay xarunta ADC ee magaalada Baydhabo gaar ahaan hoolka shirka uu ka socday waxaa halkaasi ka bilowday qodbadooyinka ay jeedinayeen qaar ka mid ah ergooyinka iyo madaxda gobolka. ugu horeen waxaa goobta ka hadlay Cusmaan Macalin oo ka mid ah madaxda gobolka Baay. siyaasiga Maxamuud Sayd Aadan oo ka mid ah ergooyinka lagu casuumay shirka maamul sameynta 6 gobol ee Koonfur Galbeed ka socda magaalada Baydhabo ayaa isna waxa uu ku booriyay bulshada goboladana degta inay u midoobaan sidii arintan loo soo gabagabeen lahaa waxaana uu rajo ka muujiyay hirgelinta maamulkan. معناها وحاولي دور القبلات علامتهم هي شرعية وحاولي وضع واقع صلي وانا طبعا وحاولي معايا هاي ومضى أبدي عاجة يوضعنا سنجازل أنا فلورين وأنا بيجي نوبري وأنا أمسكاني واحدة كما صباحيا si kastaba calankan lagu taagay xarunta ADC ee magaalada Baydhabo waxa uu ku soo beegmay xilli dhawaan ergooyinka ansixiyeen dastuurka uu yeeshay 6 gobol ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. Muxuddin Xusni, Universal TV.